السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. dhammaan waxaan salaamayaa madaxda sare ee dowladda federaalka, madaxda dowlad goboleedyadu, shacabka Soomaaliyeed, gaar ahaan ummadda jubbooyinka ku nool jubbada hoose, jubbada dhexe iyo gedo. ninka idin salaamaya waa musharax xasan caamir xuseen, waa musharax u taagan gobolada jubbooyinka. waxaan rabaa inaan ka hadlo dagaalada soo noqonaya oo markastaba marka dadka beeraleyda loo beegsanayo ayaan rabaa inaan ka hadlo. runtii sanadkan bilowgiisa waxaan aad iyo aad ugu fikiraynay dhibaatada kasoo noqonaysay dadka beeraleyda dhanka beledweyne iyo dhanka jowhar. ayaan mar badan ayaan diiradda si toos aan uga haynay dadka beeraleyda waxa loo geysanayo. midda kale jubbooyinkana waxa waaye mar badan aan ku wada hadalnay dhanka jubbada hoose iyo jubbada dhexe iyo gedo. haddana maanta waxaa soo ziyaaday anagoo ka fikirayna dhibaatada beledweyne, anagoo ka fikirayna dagaaladeeda aan weliba la dhammayno. madax badan oo dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyadana ay madax isugu jiraan si dagaaladaas beledweyne iyo xiisada ka jirta loo dhammayn lahaa. taas iyadoo laga fikiraayo ayaa hadda waxaa soo isboonaaday haddana dhanka gedo in dadka beeraleyda ah haddana loo beegsado dagaal oo si dhulkooda looga barakaciyo ay u noqdaan dad qaxooti ah, sida oo Falastiin iyo Israa'iil ay isku hayaan oo kale. dhulboobkii ayaa markastaba siyaasiyiinta Soomaaliyeed intay ka fikri lahayn si Soomaaliya ay nabad u noqoto sida lagu fikri lahaa ayaa muddo 2 bilood 3 bilood markii la kala nasta ayaa siyaasiyiinta waxay sameynayaan marka Soomaaliya nabadoodaba laga fikiraayo in dadka beeraleyda ah lagu duulo. marka runtii dadka siyaasiyiinta waxaan u sheegi lahay Soomaaliya maanta waxay u baahan tahay nabad, Soomaaliya waxay u baahan tahay xasilooni, Soomaaliya waxay u baahan tahay walaalnimo. laakiin xiisada dadka beeraleyda markasta loo beegsanayo la rabo in dhulkooda lagu barakaciyo, taas in laga fiirsado ayaan u baahannahay haddaan siyaasiyiin nahay. maadaama anoo ka hadlayo magaca dadka beeraleyda iyo magacayga musharaxnimada anoo ka hadlayo ayaan waxaan dhihi lahaa shalayto waxaa dhacday beledweyne iyagoo dadkoodii beerahoodii rabaan inay wixii badartii ay kasoo meesha ay ku tabcadeen inay cunaan rabaan oo wax yar u dhiman inay cunaan ayaa biyo lagu soo furay. markii biyaha lagu furay ka dambe haddana waxaa loo as-aasay dagaal, guryahoodii la gubay. meeshii waxaa dhacday in dagaalo weyn oo dad masaakiin oo ama xoolo dhaqato ama beeraley ha noqdaan ay ku dhammaadaan meesha. intaas runtii markaan fiirinay waxaa ku dambeeya siyaasiyiin oo oo rabaan in meelihii oo nabadda ka jirtaba inay bilaayo ay u bedelaan. siyaasiyiinta waxaan leeyahay runtii Soomaaliya wejiga ay u baahan tahay waa weji nabad way moogyahay weji bilaaya ma aha. dadka beeraleyda waa weligooda ma aha dad marka dagaalo iyo colaado abaabulaya ma ahan. waa dad masaakimiin u baahan yihiin nabad u baahan yihiin waay. marka siyaasadan dadka siyaasiyiinta ay u bedelayaan markasta markii nasasho la rabo ama Soomaaliya nabad loo rabo ama doorasho nabad loo rabo doorasho oo qof iyo codkiisa loo rabo inay aado la rabo ayaa waxaa la as-aasayaa dagaal oo dhulboob ah. runtii dagaalada hadda ka socdaan dhanka gedo oo shalay iyo maanta kusoo isboonaadeen waxaan leenahay si degdeg ah dowladda federaalka in iyo dowlad goboleedyada waxaan u sheegaya shacabka Soomaaliyeedba in guddi loo saaro si dadkaas masaakiinta oo dhibaataysan dagaaladaas loo joojiyo bilaa shuruud loo joojiyo si ay nabad u helaan. dadka kale oo damacsan in dhulka boowaana waxaan leenahay walaalayaal Soomaaliya waxaa ku nool xoolo dhaqato iyo beeraley. Soomaaliya waxaa ku nool xoolo dhaqato iyo beeraley. beeraleyda xoolo dhaqato inay isgaaraan ma rabno. beeraleydana inay xoolo dhaqato gaaraan ma rabno. annaga waxaan ku jirnaa dadaal oo mideen ayaan ku jirnaa. waxaan rabnaa ummadda Soomaaliyeed inaan mideyno, walaaleyno. wax badan ayaan rabaa inaan ka sheekeeyo barnaamijyada dhulka iyo qaabka loo degan yahay. runtii dhulka dhulbeereedka ah ha noqdaan kuwa 9 gobol sida shabeelooyinka oo kale, ama ha noqdaan dhinaca Baay iyo Bakool ha noqdaan, ama dhanka gedo jubbooyinka ha noqdaan. runtii dhulkaas dhulo si fudud oo dadkoodii looga qaadi karo ama lagu boobi karo ma aha. siyaasiyiinta fikirayaan dhulkaas inay boobaanna dhibaato badan oo maanta sumcad xumo ayay ka qaadi doonaan. aan filayo waxay ka qaadi doonaan sumcad xumo. laakiin waxaan leeyahay intaa la gaarin guddi ha loo sameeyo si degdeg ah dagaalada hadda kusoo
cusboonada dhanka gedo oo dadka beeraleyda lagu boowayo in si toos ah loo joojiyo dowladdana inay kaalin fiican ka qaadato dowlad goboleedyadana macnaha inay iyaga naftarka guddi sameeyaan in dagaaladaas macnaha mar dambe macnaha aan si dambe aan usoo noqonin in ayagana guddi ay sameeyaan si dagaaladaas loo joojiyo runtii macnaha wejiga dagaalada macnaha inay qaabkaas u dhici doonaan labadan beri shir ayaa meelahan ka soo socday oo la rabo marka dagaalada beledweyne hadday dhammaadeen haddana meel kale ayaan macnaha dagaalo kasii kacinayna waxyaalo saas ah abaabul noocaas ah ayaa siyaasiyiin badan meesha ka wadaan waxay rabaan in soomaaliya xasilooniba inay ka dhacayna la rabaa marka runtii waxaan idin leeyahay anoo ka hadlaayo magaca musharaxnimada jubbooyinka anoo ah magacayga xasan caamir xuseen waxaan leeyahay siyaasiyiinta barnaamijka ay ku wadaan dadka beeraleyda ah maanta laga bilaabo waxaan rabaa in si degdeg ah loo joojiyo barnaamijkaasayto macnaa dadka masaakimiinta beeraleyda lagu duulayo in si degdeg ah loo joojiyo guddina loo sameeyo si macnaha xiisadda hadda socota loo baabi'iyo runtii waxaa jiro dhibaatooyin badan oo dadka beeraleyda looga talagalay la rabo in lagu baraka'iyo taasna waxaa waye ulajeedadeeda si ay u dhaceen doorasho qof iyo codkiisa runtii waa dhici doonta haddii ilaahay nafta nagu simo kumana xirna macnaha dadka beeraleyda lagu duulayo kumana xirna dadka beeraleyda runtii macnaha soddonka sano dagaalada socdaan dhibaato badan loo geystay waxayna ku wada jiraan dadka hadda dhulkooda la buuwayo waxay ku jiraan qaxootiyaasha gobolada soomaaliya dhan way wala qabsan yihiin macnaha barakacyaasha macnaha dadka ku jiraan oo dhan dadka beeraleyda waay haddana iyagoo saasay 40 ruux meesha kasoo hartay dhulkooda kusoo hartay ayaa la rabaa in la boobo la barakaciyo la dilo marka taas waxaan leenahay runtii ha laga waantoobo runtii dowladda federaalka waxaan leenahay run ahaantii si degdeg ah runtii barnaamijkaas oo dhibaatada hadda ka socoto guddi ha loo sameeyo iyadoo dhaqameedka loo maraayo runtii waxaan rabnaa soomaaliya inay macnaha nabad macnaha iyo reereen ay kusoo hooyataan rabnaa ma ogiye weji dagaalaad soomaaliya annaga uma baahni siyaasiyiintan waxaan leenahay arrimahan ha lagu fiirsado barnaamijkan dadka beeraleyda markasta loo macnaha la isku dayayo in dhulkooda lagu boobo run ahaantii marka arrimaha hadda aan ku hadli doono subaxdaanayto macna kusoo ziyaaday dhanka gedo xasuuq bacan ayaa ka socda midda kale waxaan dhihi lahaa dowladaha sida jabuuti oo kale oo fidnada ku wadaan macnaha runtii macnaha soomaaliya oo rabaan dadka beeraleyda in dhulkooda loo kaciyo jabuuti waxaan leenahay wax badan ka fiirso filimada hadda socdaan dhibaatada hadda ka socdaan dadka beeraleyda runtii macnaha waxaa waye fitnada waxay nooga imaadaan waqooyi galbeed oo iyo waxay nooga imaadaan iyo waxay nooga imaadaan jabuuti intaasna waxaa waye danahooda waxaa soomaaliya inay nabad helin runtii waxaan leeyahay barnaamijkaasoo dowladda fargelinka ay nagu hayaan oo aan macnaha oo haddana la caddeyn karo waxyaalaha ay sameeyeen la caddeyn karo runtii macnaha runtii ha ka waantoobaan dhulka hadda geda loogu dagaalamayo dhulkaasayto dhul beereed oo maanta la taaban karo oo webi qarkiisa ah runtii dirtu wax kuma laha laakiin macnaha walaal waayo waa laisla deganaa waa laisla dhaqnaa qaabkay u deganaayeen waa la og yahay meel kasta gobollo soomaaliya hadday deganaayeen qaabkay loo deganaa waa la og yahay laakiin nin dhulkiisa amba ku yaalo wax kasta ku yaalo macnaha dhul beereed ah oo abka ab ah la og yahay kumanaan kun sano falanaayeen maantana in la dhaho marka dhulka ka barakaciya kenya ka imaadeen kenya ha tagaan south africa ka imaadeen south africa ha tagaan barnaamijka nooca siyaasiyiinta macnaha ha ka waantoowan waxaas ma aha wax dowladnimo lagu noqon karo wax madaxweyne lagu noqon karo ma aha arrintaas waxaan leenahay si degdeg ah waxaan leenahay guddi ha loo sameeyo hala joojiyo dagaalada ka socdaan dhanka gedo waana idin salaamaya